waxaa si habsami leh u socda oo maraya marxaladdii isreebreebka ciyaaraha Home Cable TV ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Garoonka kubadda cagta ee Trediska ayaa waxaa ka socda tartanka Home Cable TV ee bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo ay ku ciyaarayaan kooxaha isku dhafa oo ka kala tirsan heerka koowaad iyo kooxaha heerka labaad ee caasimadda Hargeysa. Waxaana tartankaasi abaalmarintii toddobaadkii tagay ciyaartooygii ugu fiicnaa ay soo xuleen guddida garoonka Trediska oo ku guuleystay abaalmarinta Home Cable TV Cabdishakuur Maxamuud Shuuro oo isagu ka tirsanaa kooxda Holac ee heerka labaad, kaasoo dhiirigelin ay u noqotay ciyaartooyda ka ciyaara tartanada Home Cable TV ee gebi ahaanba ka socda garoomada caasimadda Hargeysa. Waxaana halkaasi ka hadlay guddida garoonka qaar ka mid ah iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, sidoo kale Cabdikariin Siciid Saalax oo ku hadlay afka telefishinka caalamiga Home Cable TV. Home Cable TV oo isagu wareegan qabanqaabiyay hawshiisana la wada waa wareegu wuxuu marayaa rubuc dhamaadkii ama afartii uu marayaa. waxaa maanta wada ciyaaraya dhaweeye iyo qodob ka ciyaaraysa shacabka. waxa weeye maanta waxaa noo bilaabmay wareegii afarta oo maanta iyo berri noqonaya haddii Ilaahay qadaro. waxaa aan bixinaynaa maanta playerkii semifinalka oo ciyaartoygii ugu fiicnaa wareega waqti semifinalka, ciyaartooygaas oo ahaa ciyaartooydii ugu fiicnaa intii wiiga intii ciyaartooyda ciyaariyay. tartanku si wanaagsan buu socdaa, si akhlaaq leh oo aan buuq lahayn, isla markaana wax cabasho oo cidi ka soo yeedhay ma jirto. kubad fiican baa lagu ciyaaray, aadna waan u hambalyeynaa anigoo ka wakiila maamulka telefishinka Home Cable. sidoo kalena waxaan hambalyeynayaa ciyaartooyga ku guuleystay inuu noqdo ciyaartooygii toddobaadkii la soo dhaafay ugu wanaagsanaa ama wareegga fardhamaadka markii loo soo gudbeeyay Shuuro. guud ahaanna waxaan aaminsanahay in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgalka bulshada iyo isu soo dhaweynta dhalinyarada, isla markaana jimicsi iyo faa'iidooyin caafimaad bay leeyihiin markay ciyaartooygu xirfadda soo bandhigaan ee aanay dagaal iyo buuq kala furin. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan guddida. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kooxda Davis Holac oo aan marno afartii insha Allahna waxaan doonayaa inaan koobka qaadno. waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha kooxda iyo TV-ga Home Cable TV oo aad iyo aad dhalinyarada u garab taagan, hiil iyo hoob la garab taagan. waxaan oran lahaa aad iyo aad u mahadsan TV-gu. bismillaahi raxmaani raxiim. wareen Ilaahay baynu mahadnaqaynaa. mar labaadka waxaanu mahadnaqaynaa guddida garoonka iyo garsoorka oo si fiican u abaabulan wareegga u wada. runtii garoomadii aanu kormayno waa garoonka ugu qurux badan ee wax buuqa iyo wax isqabqabsi lahayn. taarabunkuna si fiican u daawanaya, ciyaartooyguna si akhlaaq leh waxaan u ciyaarayaan. aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa garsoorka iyo guddida sida fiican ee adaabta leh ay u abaabuleen iyo ciyaartooyga akhlaaqda leh sida fiican u ciyaaraya. ciyaartooyga ku guuleystay ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa wiigana aad baan ugu mahad celinayaa, isaguna sidaa loogu soo xulay. runtii waa karti iyo dadaal uu muujiyay oo kaga duwanaaday dhammaan ciyaartooyda ciyaarayay. runtii waxaan u rajaynayaa isagana inuu halkaa ka sii wado guulo badan gaadho insha Allah. Waarig Maxamed Cabdi, Home Cable TV, Hargeysa.